madaxda cisbitaalada gobolada madaxda cisbitaalkan ka shaqeysay iyo kuwa gobolka oo dhan dadka buka ee cisbitaalkan jooga dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh agaasime iyo maamulayaasha dhakhaatiirta waxaan doonayaa inaan ogeysiiyo in qalabkan horta sidoo ku yimid cisbitaalka waad ogtihiin cisbitaalkan aan ku dambaabay Hargeysa qaliino badan ayaa lagu sameeyaa geeska Afrika oo dhan baa looga yimaadaa caruur iyo waayeel rag iyo dumar intaba waa loogu shaqeeyaa waxa dhibaato weyn naga soo gaari jirtay nidaamka suuxinta qofka la qalayo ayaa dhibaato naga soo gaari jirtay waxay kalifi jirtay in dhakhaatiirta ajaanibka dibadda nooga timaada ee dadka qaliinada sameynaya inay suuxiyayaashooda iyo qalabkooda soo qaadan jireen qalabka suuxintuna wax aad u farsamo aad u daciifa uu jajabi karaa kastan buu sii dhex marayaa qalabkani waa maxay muxuu yahay way lumi karaan waxay markaa aanu ilaahay nala qabtay inaanu sameeyno tababar suuxiyayaashii markii la tababaray haddana qalabkii baa naga maqan waxay noqotay markaa inaanu anagu aanu saxbada hoos dhigno ilaahay oo aanu adduunka barino makiinadii ugu horeysay ee noo timid waxay ahayd xabad Glostaventa oo noocana 2011 ayaana xabadii ugu horeysay ee timid dhowr kun oo dad ayaa wax loogu qabtay waa makiinad adag waa makiinad iska xijisa arday lagu tababaray iyo intaas oo hawlo lagu qabtay waxaanu markaa aanu haddana ilaahay saxbada hoos dhignay inaanu cisbitaalada gobolada dalkayga Somaliland iyagana aanu aanu helay intoodii loo helo nasiib wanaag sharikadan iyo urur la yiraahdo Safe Anesthesia for Somaliland suuxdin badbaado leh inay helaan cisbitaaladeenna iyo dhakhaatiirteena ayaa intay isu tageen ayaa waxay inoogu deeqeen qalabkan maanta burca aanu keenay cisbitaalka Boorame cisbitaalka Gabiley cisbitaalka Berbera oo shalay soo dhignay cisbitaalka Sheekh oo shalay soo dhignay cisbitaalka Burco oo maanta aanu ku wareejinay cisbitaalka Ceergaabo oo maamulihii agaasimay cisbitaalka iyo suuxii loogu tababarayba ay joogaan halka ka sii qaadanayaan iyo cisbitaalka Laascaanood oo isaguna halkan aanu u dhignay oo wasiirka caafimaadku berito intuu yimaado uu geyn doono Laascaanood iyadoo ay kaga horeeyaan suuxiyayaashii lagu tababaray ee aanu Hargeysa ku tababaray oo uga sii horeeyo Laascaanood jooga fariinta aan kaga tagayay dardaaranka aan kaga tagayaa waxa weeye Soomaaliland inta ka weyn Soomaaliland inta soo cisbitaal oo kaliya ma heeq in ka badan baa jirta meelo badan oo qaliin lagu sameeyaa jira oo iyagaba dib ka mutaysta suuxdinta waxaanu isku dayeynaa hadii ilaahay nala qabto inaanu cisbitaalada kalena aanu helo waxa kaloo raacda qofkii bukay hadduu dhakhtarkii farsamada qaliinka yaqaanay joogo suuxiyihiina uu joogo qalabkii uu ku shaqayn lahaana uu meesha yaalo qayb kale muhiim ah ka maqan kaaliyihii dhakhtarka caawinayay ee qaliinka kala qayb galayay ee qalabka u diyaarinayay ee theaterka ama goobta lagu qalayo u diyaarinayay ayaa isaguna kaalin weyn ka geysta badbaadada qofka la qalayo waxaan ku tala jiraa hadii ilaahay nala qabto kuwa horna aanu tababaray laakiinse imika hadaan ku tala jiraa inaanu team cusub meeshii aanu makiinadahan suuxinta geynayba inaanu u tababaro kaaliyayaal qolka qaliinka loo tababaray waxaanu diyaar u nahay in gobol walba laba laga keeno Ceergaabo labaha soo dirto agaasiba soo dir oo gabdhahan imika aanu ku tababarayna 20 hablood ee umulisooyinka aan ku tababarayo labada ugu fiican soo dir kuwii horan ku tababaray waaniganka macallimiin baan idin ka dhigay kuwan ama kuwii hore soo baxay ama kuwii makan ku qalin jabinaya
laba qof oo kakan oo iska kay xijiya oo tababarka iska xijiya oo ku kalsoon tahay oo dadka ku aamini karo soo dir waa lagu tababaray waxaanu diyaar u nahay laascaanood si la eg laba soo dir laba hagaagsan oo wanaagsan oo la tababari karo burcay soo dirta laba sheekh way soo diranayaan marka meelihii la geeyay makiinadaha suuxdinta waxaanu diyaar nahay inaan laba hadii laga soo diro aanu tababaro labadaad soo dirtaan dardaaran baan haddana ka gelaya ha iigu soo dirina hebel baa dhalay qofkaas ha iigu soo dirina hebel bay xidid yihiin ha iigu soo dirina qofkaas waa caynka iyo halkaasaa geelihiisu meel heblaayu daaqa iigu soo dir qofka ka kanaan iyo kalsooni aad qofka qofnimadeeda aad ku qabtaan haddaad ii soo dirtaan oy kursigii kaa buuxiyaan oo anna ay ka soo bixi waayaan tababarkayga waan soo eryayaa way kaa lumaya marka horeba laba aan la soo eryi doonin oo xula ayaad soo diranaysana haddii alla ka dhigo waayo qalinkoodaas ayay halkaa ku joogayaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay suuxiyaha loo tababaray laascaanood iyo Ceergaabo inuu maanta fadhiyo oo qalabkiisii gudoontay waxaanu ku faraxsanahay Ceergaabana inuu joogo maamul yahay qof cisbitaalkayga jaamacada ka soo baxay laascaanoodna ammaana loogu hayaa Ceergaabana way qaadan dardaaranka kale aan idinkaga tagayaa waxa weeye qalabkan suuxiyi dadka lagu suuxiyaa ma aha wax lagu ciyaaro naf ayaa lagu badbaadiyaa ilaahay baa wax badbaadiya laakiin farsamadii ilaahay na baray ayaa lagu badbaadiyaa iyo makiinadahan aqoontii iyo qalabkii oo isu dheelitiran oo isku tababar la isku siiyay ayaa qofka wax looga qaban karaa hadii ilaahay ku badbaadinaya waa ilaahay bay go'aankiisii weeyaan laakiin gacantayada gacan bina aadam intii bina aadam qaban lahaa waa qalab lagu badbaadin karo waxaan aad iyo aad kugu mahadnaqayaa agaasime maamulaha cisbitaalka Burco wada waxaan ka warinayaa cisbitaalkan tog dheer inta aan ka bixin macallimad ayaan ka ahaa Burco gobolkan waan ka tirsanahay aabahay aadan dhakhtar intiini garanaysa waad garanaysaan cisbitaalkan buu madax u ahaan jiray intaan u geeriyoonin 55 sano horteed aadan dhakhtar baa madax u ahaa iskuulka Burco hablaha 53 la furayna macallimad baan ka ahaa cisbitaalkan waxaan ka urinayaa aabahay Allah yarxamo waxaan ka urinayaa yaraantaydii baan ka urinayaa waxaan ka urinayaa kalgacaylka aan u hayo gobolkan ayaan ka urinayaa marka alaabadan aan idinka tagay inoo wada ilaaliya waxaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo Dr. Robert iyo Dr. Mary Mungai. Dr. Mary Mungai waa gabadh Kenyaanada waxa weeyaan kormeeraha suuxiyayaasha Kenya waxay tahay matalaha suuxiyayaasha Afrika waa gabadh matasho weeyaan gabadha maanta Burco ii fadhida waxa weeyaan madaxda suuxiyayaasha Afrika ha yaraysanina gabadha xawleeda ah rag badan bay madax u tahay waxaan halka ku gaadhay karti iyo aqoon iyo imtixaan waxa imtixaankii iyo aqoontii ay lahaydna ii tababartay macallimiinta maanta waxa kuwan jiilkan cusub u dhiga kormeerana maanta oo ah aan idin soo diri doono mubaaraku min fadlaka iyo istaag waa kormeeraha koowaad ee halkan lagu tababaray dabadan lagu soo tababaray xamda hooyo istaag saddexda kormeera ayaa jira labada maanta jooga xamda waa kormeer haddaan iyada soo diro iyo haddaan ta kala soo diro ayaa haddaan mubaarak soo diro kormeer baan ku nimid kormeer ay ka socoto dadkii tababaray qalabkanayna siiyay waxaan doonayaa qalabkaas inuu noqdo inuu inoo horseedo wixii dambe aynu ka helaynay ee ilaahay inoo qoro dooni maayo inaan inaga lumaan dayac kuwan aynu dayacnay kuwa dambena inaga hor joogsadaan dooni maayo
waynu u baahannahay aad baan ugu mahadnaqayaa waan ku faraxsanahay ilaahay gacantayada soo geliyay ee nooga kiin soo dhiibay ee ammaanadaas nagu soo aaminay ayaa horta mahadda koowaad leh waxaan jeclaan lahaa waliba intaa haddana aan sii raacin lahaa gabdho ayaanu idiin soo diray oo idinla jooga imika cisbitaalkan 5 hablood baa kula joogaan u malaynayaa oo u dhashay gobolkan waa kuwa tababarada xagga u socdaan aynu ugu socdaan Hargeysa waxaanu jeclaanay in gabdhahaas intaanaanu digriigooda seenan inay horta wadankii gobolkay u dhasheen horta yimaadaan ay arkaan shaqada hadhowta aan ka rabo ee loo tababaray magacyadooda qorta hadday meelaha markaanu shahaadada siino ay meelahaas ka tahriibaan oo gobol kale u tahriibaan meel kale ama Hargeysa igu dhex wareegaan waa khasaare hablahaas ku talagala inay idin soo noqdaan u suura galay inay idin soo noqdaan inay ka shaqeeyaan umadoodii u shaqeeyaan baahida halkan taala ha fahmin ha arkeen ha u damqadeen dareen ha ku beermo waxaan kaloo soo dhaweynayaa Dr. Maxamed neurology Maxamed Sheekh Cali baan isagana soo dhaweynayaa oo aan isna u ballan qaadayaa marka qaliinada aanu sameynayno neurology-ga inuu noo yimaado oo qaliinada ka qayb galo si hadhowto la socodkooda dadkaas uu la socon karo waxaan kaloo aad u salaamayaa oo gobolkan isaguna jooga Dr. Cabdulqani oo isaga ahaa dhaqaatiirtii marka ay soo qalin jabiyeen cisbitaalkayga sanado badan ka soo shaqeeyay aan ku faraxsanahay inuu gobolkiisii ku soo noqday oo maanta ka shaqeeyo dayn bayn ayaa laynagu leeyahay inteennay wax baratay dayn culus baa laynagu leeyahay daynkaas waa in aqoontii layna baray aynu ummadeenna la soo noqonnaa ilaahay mas'uuliyadda hayna garansiiyo ilaahay hayna la qabto meel wanaagsan baynu maraynaa wayna halka ka sii fogaanaa halkan ka sii durugnaa aad baad u mahadsantihiin waxaan jeclaan lahaa in ku soo dhaweeyo qolinka martida inoo shisheeya ajnabiga ee alaabtan inoo keentay I'm going to ask Robert to say a few words if you may. Thank you so much. Mary, do you want to say something? It's up to you. Thank you.